السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودyaasha qaaliga waqti kasta idinta wanaagsan oo wacan isku soo noqosho wanaagsan daawadayaasheeda qaaliga fadlan hadaad nagu cusubtaa video hadda ku soo gaaro fadlan la garay oo la wadaag saaxiibada kaleeto si aan xogteen intaan in ka badan halkan kugu soo gudbino habeen kasta iyo xilli alla xilliga Ilaahay ku soo aadiyo si aan xogaha saxda halkan kugu soo gudbiyo waxaan ka codsanayaa inaad video-gan si gaar ah aad u la gareyso waxay ii tahay dhiranaan kaleeto inaad la gareyso barnaamijkayga si aan xogaha saxda halkan kugu soo gudbiyo aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinayaa sida wacan aad barnaamijkayga markaas aad ugu xirantiin dhamaantiin waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan qofka habeen u tahay qofka maalin u tahayna maalin wanaagsan ayaa leeyahay marka saaxiibadeeda qaaliga ah fadlan waxa idinka codsanayaa inaad barnaamijkeena si share gareysaan oo aad share gareysaan oo aad la gareysaan si aan xogteena aan u guda galno waxaan halkan idinku hayaa xogo xasaasi ah oo u baahan ama waqtigeeda saxda ah in laga hadlo u baahan ayaa halkan kugu soo gudbi doonaa waxaan halkan idinku hayaa laba arin oo muhiim ah oo saxda ama waxa saxda hadda taagan ayaan rabaa inaan ku dul istaajiyo ma aan wixii laga soo gudbay ma aan waxa hadda soo socdo laakiin waxaan rabaa inaan ku dul istaajiyo xaaladda saxda ee maanta taagan ama maanta dhacday iyo wixii xal dhacay sidoo kale waxaan rabaa inaan xasuusiyo video ka horeeyay xogihii aan ka soo hadlay ee ugu dambeysay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble sidii aan ugu hadlay ayay u dhacday waad aragtaan markaan fiiriyo aniga waxaan fiiriyaa qaabka wax u socdaan siyaasad ahaan iyo ilaha aan wax ka helo ayaan ku kalsoonahay marka barnaamijkan aan rabo habeenkaas halkaan kugu soo gudbiyo waxaan soo aruuriyaa xogaha saxda ah ee markaas ugu dambeysay waxaan soo aruuriyaa ama ilaha gaarka ah aniga qaasatan u leeyahay oo saaxiibada gaarka ayaan waxaan ka soo helaa xogta ugu dambeysay ee ku saabsan barnaamijkaasi sidoo kaleeto fikirkayga ku saleysan xagga iyo siyaasadda ayaan idin wadaagaa sidoo kaleeto waxaan idin xasuusiyo video ka horeeyay waxaan kaga hadlay xogta ugu wanayd ee ahayd Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana ka sii degaysiina sheegay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu ku dhaqaaqi doono falka ugu horeyso ah inuu isku dayo inuu isbedelo soobiyo isbedelka halkay ku imaan doontaa halkee ay ka dhici doontaa waad wada arkaysan isbedelka meesha u socotay iyo halka u socday waa wax cad aan dadka ka qarsooneen okay maxaan halka idinku hayaa marka caawa laba arin oo muhiim ah ayaan ka hadlo maxaa ku soo beegay xilligan isbedelka iyo magacaabista degdega ah ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku suubiyay guddiga doorashada guddiga xalinta khilaafaadka labo waxaan rabaa inaan ka hadlo mucaaradka wadada ay ku socoto miyayta wadadii saxda ahayd mise waa wadadii geeylahayd in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 2 sano loogu daro iyagana raali ay ku yihiin waliba ay u codeyn doonaan qaybna ka noqon doonaan waa wararkii ugu dambeeyay ee saxda ahay ayaa rabaa inaan ku dul istaajiyo waxaan idinka codsanayaa si aan dad badan u helno inaa xogtiina si share gareysaan oo aad la gareyso si dad badan ay u gaarto waxaan sidoo kale idinka codsanayaa fikirkiina iyo araadidiina inaad halkan idinku la wadaagtaan haddii oo alla insha Allah aan gudagalno marka barnaamijkeena waxaan hore uga soo hadlay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble falka uu ku dhaqaaqi doono laakiin waxaan rabaa inaan xogta maanta inaan ku dul istaajiyo guddiga xalinta khilaafaadka waxa maantay xilka laga qaaday 7 kamid ah waxa loo magacaabay isla 7 kamid ah markii guddiga la fiiriyo xalinta khilaafaadka 3 meelood hal meel ayaa laga qaaday xilka waxa soo dhaweeyay arinkani mucaaradka qof kale ma iraanaan qof kale ma magacaabayo mucaaradka ayaa soo dhaweeyay qaabka ay rabinayay wax u dhaceen okay marka aad fiiriso qaabkii wax u socdaan iyo qaabkooda iyo dhaqankooda marka aad fiiriso Britol waxaad arki doontaan iyagoo leh maya doorashadan waa ka hor istaagnay waana diidnay aan barnaamijkayga u soo laabto Ra'iisul Wasaare Roble wuxuu si qaas ah uga codsaday in qaabka ama guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu si gaar ah uga codsaday in isbedel degdeg ah lagu suubiyo waliba hakin sax ah ama kursiga laga qaado qofkii calashan dood muranka keenay kursiga wuxuu ahay hob 67 ayaa muranka weyn keenay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu si gaar ah uga codsaday guddiga xalinta khilaafaadka ayuu wuxuu si toos ah uga codsaday in kursigaasi gabi ahaanba la kansalo lana hakiyo dibna loogu celiyo guddiga doorashada waxay si toos u dul istaageen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay yiraahdeen Ra'iisul Wasaare arinkani ma ku dhaqaaqi karno sababtoo ah guddiga xalinta khilaafaadka waxay leeyihiin qodobo ay ku xaliyaan kursi kasta oo murankiisa la keeno qodobada waa maxay
guddiga xalinta khilaafaadka waxaa lagu heshiiyey 17 September qodobadii lagu xalin lahay haddii ay dhacaan kursi muran ku yimaado, haddii ay dhacaan nabadoono khilaafaad keeno. xalka ugu dambeeya waxaa iska leh guddiga khilaafaadka. guddiga khilaafaadka wuxuu leeyihiin dastuur u gaar ah ee ku xaliyaan arrinkaasi. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa loo sheegay si toos loogu sheegay in laga biyo diiday in kursigaani dib loo celiyo waliba amarkiisa la qaato. way ka diideen wadadii saxda ayayna qaadeen. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble marka dadku wuxuu ka qariyay sababta ugu ceeriyay, wuxuu ka qariyay sababta ay u diideen guddiga xalinta ah in arinkaani muran badan lagu keeno ah waxay la jirsadeen u dhahay arrimaha siyaasadda ay faragashadeen. guddiga xalinta ah wax siyaasad ah ama wax siyaasad ay farageliyaan habeeraati ma jirto. aniga warkaan waxaa idinku gudbinaa waa warka xaqiiqatan ma iska hadlaayo qof aan war ka soo qaatan ma aan, waa xaqiiqatan waxa saxda ay taagan ilahan ka hela ayaa halkaas aan iga soo sheegin. sidoo kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble soo laabashadiisa waxaa si toos ah oo ula kulmay guddiga kuna amray in ay amarkiisa qaataan. kulankii ugu horeeyay oo la qaatay waxay ahayd xalay. guddiga wuxuu si toos amar u siiyay in dhammaanba ay hoos tagi doonaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. guddiga waxay si toos u dul istaageen ama ay ka hadleen arrinkaasi. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa loo sheegay in uu arrinkaani faraha kala baxo sababtoo guddiga xalinta ah waxay leeyihiin ayna warqado ama dastuur u gaar ah ee ku xaliyaan kursi kasta oo muran lagu keeno. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble si markaad u fiiriso waxa pressure saarayo mucaaradka waxay leeyihiin Ra'iisul Wasaare doorasho adiga aad wado dhammaan kama qayb galeen. marka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu ku qasban yahay marka wada kasta oo wax walba ku burburi karo waa inuu burburiyaa, wada kasta oo wax ku khilaafi karo waa inuu soobiyaa, wada kasta oo isleeyahay maanta waxa ku hirgelayso waxa aad rabto ah inaad xilkan sii joogto ayaa ku hirgelaysay halkaan iska celi, halkaan iska burburi, halkaan ka dhac. waxaan idin xasuusinayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble markii uu Djibouti ka hadlayay hadal uu ka dhawaajiyay aniga shaki ayuu ugu dhaliyay hadalkaasi dadka inta ugu badan ma isla socon. hadalku wuxuu yiri 3 hadal uu ka dhawaajiyay. wuxuu dhahay mucaaradka gees ay iga qeylinayaan dhahay waxaan ku dhex jiraa dhahay saddex meelood oo dab ah ayaan ku dhex jiraa dhahay. hadalka fiiriya mucaaradka gees ay dagaal igala jiraan dhahay. labo beesha caalamka gees ay dagaal igala jiraan dhahay alshan aynu eed ay dusha iga saaraan dhahay. wuxuu sidoo kale ku carbaabay fila Soomaaliya gees ay cadaadis iga saartaa. hadalkaasi aad ayuu ii taabtay Ra'iisul Wasaare. hadalkaasi wuxuu igu taabtay wax kale ma ahan fila Soomaaliya adiga ayaa ka yimid, adiga ayay ku dhaleen, adiga ayay amar ka qaato, adiga ayay ku soo magacaabeen. way aad ugu sheegaysaa bulshada dhexdeeda aad dadka ugu sheegaysaa in fila Soomaaliya ay cadaadis kugu hayso maxay tahay sababta ka dambayso. aniga su'aashaas waa isweydiiyay. arrinkaasi wuxuu igu dhaliyay shaki weyn ayuu igu dhaliyay. shakigaas uu igu dhaliyay waxaan kala soo dhaxbaxay hadalka siyaasiga ku haboon ee ah in la dul istaagi karo. habeen hore fiidiyowanka ka horeeyay ayaan uga soo hadlay. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waa nin si markaad u fiiriso isbedbedel badan. siyaasadda markii laga hadlayana markaad dhinac walba u bodboodo reality markaa ka hadlo cid ku jeclaahaysa ma lahan. runta markii laga hadlo siyaasadda waa ka mamnuuc inaad noqoto qof marba dhinac isku badbedelo. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble hadalkaasi uu ka dhawaaqay oo kaga hadlay masraxa ee Djibouti uu kaga hadlay heritage wuxuu yiri ani hadalkaasi dadka inta ugu badan ma aysan ka hadlin laakiin waan ka dhawaajiyay waxaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble sababtoo fila Soomaaliya oo uu eedeynaya maxay tahay maadaama isaga uu ka tirsan yahay fila Soomaaliya. waa hadal u baahan in si toos loo laakiin way soo bixi doonaan waqtigeeda ayaan suga doonaa. okay aan ku soo laabto barnaamijkayga. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Ismaaciil Cumar Geele gooni ayay u kulmeen. fariimo ayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen loo dhiibay, ballanqaadyo ayaa loo soobiyay. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa loo sheegay in awoodda doorashada ee gacantiisa ay ku jirto uu isbedel suubi karo waqtiga ugu dhowna oo isbedel ku dhaqaaqi karo. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble isbedelkaasi uu suubi karo waa loo sheegay. waxaa la yiri xukunka waxa ku hay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo siyaabo kasta oo aad ugu bedeli karto xilkaasi aad ugu qaadi karto adiga ayay ku hoostaala maadaama doorashadii aad adiga qayb ka tahay, maadaama adiga aad qayb ka tahay guddiga golaha wada tashiga qaran aad qayb weyn ka tahay isbedelada ugu dhow adiga ayaa soo bi karo. waxa loo sheegay marka qaab walba oo isbedel ku soo bi karane waa loo soo qoray waa loo soo dhiibay waliba xitaa hilmaam hadalku ma jiray hadallo badan ayuu ku dhawaaqay hadalkaas markuu joogo. wuxuu yiri madaxweynaheena macna waa Ismaaciil Cumar Geele ayuu yiri
qayb ayay ka tahay hadalkaasi dadka inta ugu badan ma fahansana marka barnaamijkaygan sii wata marka Kenya iyo Djibouti oo isku dhinac ah ayaa Roble u sameeyay balanqaadyo iyo wixii iyo isbedel calashan uu isku furdaamin lahaa Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble Djibouti iyo Kenya oo isku dhinac ah sababtoo labadaas marka aad fiiriso aniga Djibouti shakhsiyan ma ka hadlaa shacabka waa shacabkeena oo kale waa dadkeena laakiin waxaan ka hadlayaa waxa ay tahay Djibouti iyo Kenya waxay si toos uga soo horjeedaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaab walbaba iyo wado walba looga saari karo wadadaasi waa inay u maraan yee u mari karaa marka waxay u mari karaan kaliya waa Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble waxa si toos loola hadlay balanqaadi loo suubiyay aniga hore uga soo sheegay waxaan iraaday Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble waxa la soo siiyay waa lacagtaasi waxa uu ku doonayaa waxa waay inuu isku furdaamiyo doorashadaani laba wuxuu ku doonayaa waxay tahay madaxweynihiisa isaga soo magacaawday ku aamin inuu doorasho qaban karo ayuu rabaa inuu isbedel ku suubiyo oo go'doon ku suubiyo qaab walba ugu suubi karo laakiin awoodaasi ma lahan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ragga ku hareeraysan dhamaantooda waxa laga baraandegay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble hadii even oo suubiyo wax isbedel ah ama waxyaabo kala doo suubiyo waxa laga sii baraandegaa siyaasad markaa ku jirto waxa la hadaa dhowr arin ayaa la hadaa plan A plan B plan C ayaa la hadaa sababtoo ah baleenkaad koowaad aragtay haduu ka qarxo baleenka labada ayaa lagu dhaqaaqaa saddexaad ayaa lagu dhaqaaqaa si aad u subiso isbedel markaas taagan oo aad wax ku bedeli karto Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble Kenya iyo Djibouti waxay damacsan yihiin oo kaliya waxay tahay sida xilkaasi oo maadaama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu cadcadiya xilligan taagan yahay in doorashan dib ugu soo laaban karo ra'iisul wasaaraha waxa lagu amray inuu dhaqaaqo oo falcelin suubiyo waxaynu u balan qaadeen kursi qaab walba uu ku heli karo in la sii doono haddii xilkaas uu ka qaado halkaasi labo in la sii doono lacag malaayiin ah qaab walba uu ku heli karo in lagu siiyo sidoo kale waxaa loo hormariyay lacagihii uu ku dagaalami lahaa arrinkaasi markaasi u fiiriso Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble waa nin dhinac walba ka gubtay laakiin markaasi u fiiriso waa nin mar lacag walba uu ku soo bi karo iyo xilka sidoo ku joogo inuu soo biyo in la yiraahdo adaan badalka madaxweyne ka ayuu doonaya laakiin uma hirgaleys qaabkaasi aan u soo laabto barnaamijkayga qodobka xiga wuxuu yahay maxaa isku beego maxaa isku soo aadiyo macnaha isbedelka ama maxaa isku soo aadiyo ama isku soo beego aadista Djibouti iyo isbedelada degdega sida in lacag markii la siiyo oo isbedel degdeg ku dhaqaaqo markii la siiyo ama calasha loo balan qaado waxyaabo kale tan isbedel ayuu ku dhaqaaqa maxaa isku soo beego aadista Djibouti iyo isbedelka degdega ah waa su'aasha aad dad badan isweydiisaan Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble kulanka ka horeeyay oo ku aaday Djibouti wuxuu ku soo biyay dagaal ayuu madaxweyne isku qaaday waxa loo sheegay u fiirso markii la fiiriyo waxa arag rag badan mucaaradka ah waxay yiraahdeen Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble ma aha nin dagaal la geli karo sababtoo ah markii dagaalka la galo durbu uu soo bedelay yiraahdeen markaasi u fiiriso horta Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble markaasi u fiiriso nin daacad ayuu egyahay laakiin dhanka kale marka uu fiiriso Allahu a'lam ani waxaan ka sheegi karaa laakiin se waxa ay tahay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble waa nin damacsan inuu raadinayo qaabka lacag ku subinayo markaasi u fiiriso doorasho ayaa lugta ku hayso wuxuu damacsan isbedel inuu subiyo laakiin mihir galayso maxaa keeni karo Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble waa nin lacag doon ah qaab walba lacag ku raadi karana waa inuu raadiyaa ani halkaas ayaa ugu gudbay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble asaga iyo guddiga doorashada marka ceerinta guddiga xalinta khilaafaadka Ra'iisul Roble awood ma u leeyahay calashan Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble awood ma u leeyahay inuu ka ceeriyo guddiga xalinta khilaafaadka su'aasha taagan waxay tahay maadaama uu yahay ra'iisul wasaarihii loo magacaabo in uu doorashada dalka gaarsiiyo horta awood markii laga hadlayo 17 September ayaa hore looga soo hadlay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble haddii uu qof xil ka qaadayo guddiga doorashada ah waxa qasab ah inay wada jir noqdaan guddiga golaha wada tashiga qaran halkaas markay isku yimaadaan golahaasi ay xilka waxay ka qaadi karaan Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble qofka ay rabaan oo asaga damacsan inuu xil ka qaado laakiin taasi uu ku seegay waadna aragtaan khilaafka hadda soo kala dhaxgalay guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka iyo Ra'iisul Maxamed Xuseen halka ay kala taagay maanta wada aragtaan marka habka xalinta waa wax qoran
markii laga hadlayo in wax la xalinayo dhibaato markay soo wajahdo arinkani xalinta markay noqoto waxa iska leh guddiga xalinta waxaan wax ku xalinayaan waa wax u qoran oo 17 September hor looga soo hadlay halkaas ay wax ku xalinayaan ay mooyo kuma xalin karaan wax ka baxsan ama qof wuxuu damacsan yahay ama mucaarad oo damacsan yahay ama shakhsi kale oo damacsan yahay kuma xalin karaan okay marka waxna kama bedeli karaan hadii si kasta loo yeelo oo hadda isbedel lagu suubiyo waxna kama bedeli karaan arinkani oo in doorashada qaabka loo xalinayo dhibaatada laga soo wajahayo habkaas waxba kama bedeli karaan Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble hadaba markii la fiiriyo waa nin dhinac walba ka gud laakiin anigu maanta uma hayo wax ka duwan oo ah Ra'iisul maxaa isku soo beego marka Djibouti aado isbedelka degdega ah waa su'aasha u baahan inaad fagaaraha shacabka uga jawaabto ee ma ahan inaad darbiyada isku qorqariso Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble okay marka halkaas aan uga soo gudbay Ra'iisul kuma fogaanayo aniga midowga musharaxiinta marka ragani waa rag hilibka meeshuu suran yahay hadii dhinac walba loo lalaadiyo waa rag kala laasamo waa rag raadiya halka ay wax ka heli karaan horta albaabadii mucaaradkan ee lahaayeen maamul goboleedyada dhamaantood ku wada xirayaan si kasta oo la yeelo maamul goboleedyada qaab hadda waxay isku dayeen mataqaana xalay waxa ugu dhameysay waxay wada tashi lahaayeen Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble wada tashigaas ay ku lahaayeen Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble kuma aysan helin qaabka ay wax u damacsanaayeen marka aan ku leeyahay qaabka wax u damacsanaayeen waxay damacsanaayeen ragaani Ra'iisul Wasaaraha isbedel soo bikra ma islaheene waxay rabeen in ay isku wada yimaadaan golaha wada tashiga qaran iyo sidoo kale midowga musharaxiinta buugga Facebook-gooda waxay ku qorteen in ay ka shireen doorashada habkii u socoto in isbedel lagu subiyo doorashada qaabkii ku socoto sidoo kale waxay ku dhawaaqeen ay yiraahdeen waa in Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble oo isku keeno golaha wada tashiga qaran iyo midowga musharaxiinta intaas waxay ka doonayaan wax kala ma ahan maadaama ay kala irdoodeen ay kala fogaadeen maamul goboleedyada qaabkii la isku soo dhaweey lahaayeen ayay waxay ka raadiyeen hadda fiiri waxay wax ka raadinayaan qaabkii la isku soo dhaweey lahaay maamul goboleedyada ayay waxay ka raadiyeen in la isku keeno markaani maamul goboleedyada iyo sidoo kale midowga musharaxiinta si xitaa at least gorgortan loo galo balaqaadi loo galo laakiin arinkaas oo ku fashilmeen Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble marka anigu waxaan leeyahay Ra'iisul Wasaare hadii aad adigu go'aanka wax ku bedeshay oo maskaxdaada aad ku keento istiraahday doorashada ku badbaadi waa ku saxantaa ku leeyahay laakiin su'aasha aniga ii taagan waxay tahay maxaa isku ka soo beego aadista Djibouti iyo wax ka bedelkaaga waa su'aasha u baahan in aad dad badan uga hor jawaabto dadka hortooda okay marka aan u soo gudagalo marka midowga musharaxiinta ay midowga musharaxiinta aniga waxaan rabaa inaad dul istaago midowga musharaxiinta qodobooyin muhiim ah ayaa halkan idinku haya oo okay maxaa markasta sababtu maxay tahay in meel kasta ay ka raadiyaan siyaasadooda maxay tahay ama sababtu maxay tahay in siyaasadooda ay meel kasta ay ka raadiyaan okay laakiin maanta xilligan la taagan Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble waxay ku taageen xilka qaadista uu suubi waa maxay sababta marka is weydiiso raggan waxay raadinayaan qaabka ay wax walba ay ku helayeen at least xitaa fiiri waxay isleeyihiin raggii kuraas laga soo boobay xitaa wax uun ka hela si idinka xitaa rag idin saacidad u heshaan waa qaabka markasta ay damacsan yihiin Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble marna way aflagaadeynayaan marna waxay leeyihiin wuu qaldan yahay marna wuxuu leeyahay wuu saxan yahay meel loo raac ma lahan laakiin ana hadda idin sheegay wadadan ay ku socdaan waa wadadii geey lahayd in ay maanta iska soo xiraan horta albaabadii maamul goboleed way soo xireen laakiin haatadan waxay doonayaan inay xiraan oo toos iskaga soo xiraan habka ay doorasho u socoto waxayna toos ugu celin rabaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2 sano dheeriya qof iyo codaya dib loogu laaba doonaa habka maanta doorasho u socoto okay waxay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble u sheegeen qof kasta oo kursigiisa fiiriya meeshan hadalkan toos u dhageysto Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble waxay u sheegeen qof kasta oo kursigiisa loo diida ama laga soo boobo inay dhabarka iyaga u rinteen waa hadalkii xalay laga soo dhaxelay midowga musharaxiinta waxay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble kula canaanteen ama kala dul dhaceen Ra'iisul qof kasta oo kursi laga soo boobo ama kursi loo diido ama reerkiisa ay u diidaan
anaka ayaa dhabarka u ridanay waana u taagannahay waana u doodeynaa qaab kasta ay ku heli karaan kursigaani waa inay ku helaan ayay taagan yihiin u fiirso doorashadan waxaa iska leh diiditaankeeda ama yeelitaankeeda nabadoonada kursiga iska leh nabadoonka ayaa kursiga keensan karo ragga ugu talagalay inay tartamaan nabadoonka ayaa diidi karo ninkii shalay kursigan ku fadhiyay in mar kale loo diido nabadoonka ayaa iska leh howshaasi iskama lahan qof kaleeto cidka si kastaad u tiraadaan hadda maanta fiiri ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaa tiraadeen guddiga xalintu waxa waaye si fiican ay yeesheen laakiin kuraastii aad ku doodaysaan dib looguma laaba doonay hore ayaa loo socon doonaa dib ugu laabto warqadda wax ku qoran idinka indha la-aan ayaad wax walba u hadashaan dib ha loogu laabto warqadda wax ku qoran ra-isul maxamed xuseen roble waxaa ka mid ahayd in doorashada hore loo wadi doono dib aan loo laaba doonin hore loo socon doono wixii ka hor yimaadana la sixi doono haddii oo aalid insha allah okay marka waxay wada hadal ama la hadleen ama la hadli karaan okay wax wada hadal ah ama wax yar ii kaadi marka meeshaan okay wax wada hadal ah ama ay la hadli karaan oo qof calashaan maamul goboleed ay la hadli karaan oo aan ka ahayn hal nin oo ra-iisul maxamed xuseen roble haba yaraatee ma jirto dhammaantood marka aad fiiriso maamul goboleed ay la hadli karaan ay wax ka sheegi karaan ama ay dhihi karaan haba yaraatee ma jirto sababta irid walba iska soo xireen kaliya waxay wax ka raadinayaan waa ra-iisul maxamed xuseen roble sababtoo ah marka aad fiiriso odayaasha dhaqanka ee kuraas iska leh ma la hadli karaan sababta odayaasha waxay og yihiin raggaani si kasta ay dee wax yeelaan inaysan kursigan dib ugu soo laaban karin sababta waxay iyaga damacsan yihiin ayay ku dhaqaaqi karaan cid kasta oo ku shaqo leh doorashadaanina dhammaantoodna wax irid ama wax ay kala hadli karaan haba yaraatee ma jirto markaasi u fiiriso macaaradka wax hadda dhaqdhaqaaq ah oo ay ku dhaqaaqi karaan ee doorasho ku gali karaan kalsooni iyo ku socon karaan haba yaraatee ma jirto u fiirso waxaad arki doontaan kulamada soo socda waxay noqon doonaan doorashadii ama qaabkii looga soo horjeestay ra-iisul maxamed xuseen roble maadaama ra-iisul maxamed xuseen roble halkii irid ay ku dagaalamaan ee wax kaga sheegi karaan ee wax walba ku soo bi karaan uu yahay maantadan wixii ka dambeeyeen waxay weerar ku qaadi doonaan ra-iisul maxamed xuseen roble bal afkaas ama hadalkaas laga qora doolid insha Allah qodobka xiga wuxuu yahay okay miyay dib u midoobeen mucaaradkii kala irdheysnaa ama kala duunaay su-aasha jawaabteedu waxay tahay waa may weli way ku kala aragti duwan yihiin habka ay doorasho u socoto ragga qaar weli waxay damacsan yihiin ama ay doonayaan in doorashadaani la hakiyo oo kuraasi lasoo boobo dib loogu laabto ragga qaar ee mucaaradka kamid ahne weli waxay damacsan yihiin ama ay doonayaan in doorashada hore u socoto aana la hakinin waqtiga ugu dhowne doorashadan sida ugu dhaqsiyaha badanne lagu boobsiiyo si loo gaaro xilligii loogu talagalay doorashadan la qaban lahay reality markaan ka hadlo aamin iskuma qabaan mucaaradka dhexdooda iskuma kala socno ninba ninka kaleeta ayuu weliba sii ximayaa ninba ninka kaleeta ayuu wuxuu leeyahay kursigana iskale doorashada qaabka u socoto diyaa sax maan doorasho ragga qaarna kalsooni isku qabaan wuxuu ku leeyahay doorashada qaabka u socoto waa qaabka ugu saxneed mana yeena dib loo laabto doorashada hore loo wado okay walina way ku kala fikir duwan yihiin qaabka doorasho u socoto qodobkan raba inaan ku soo gabay wuxuu yahay hadaladii ahaa ee ku dhawaaqeen mucaaradka doorashada hala joojiyo midoo cusub oo dagaal ah ayaan soobi doonaa qaabka ay doorashada ku socoto dhammaan waa qaadacnay doorashada ragkii kusoo baxay dhammaantood wax saxan ma ahan waana calashaan wax kasta isbedel ha lagu suubiyo miyay sideeda weli yihiin mise waxbaa iska bedelay horta hadaladii ay ku dhawaaqayeen waxa la yiraahdo propaganda ayaa la yiraahdaa si ay propaganda u fidiyaan ee hadallo u yiraahdaan ay waxay damacsan yihiin inay waxyaabo badan ay soo geliyaan si doorashadan loo hakiyo iyaga danahooda loo fuliyo oo kaliya waa wax kale ay damacsan yihiin ma ahan inay damac kale ku jirto ama damacyo kale tiraadinayaan ma ahan kaliya waxa waaye waa propaganda ay fidinayaan si doorashadani ay wax kale u noqoto oo ayaga gacantooda u soo gasho laakiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo halkaas doorasho ka taagan yahay idinkan wax ku qasbatiin doorashada halkaas ka istaagtaan labadiinaba dhexda ay ditaalaahe doorashada ama qaata ama ka taga waa halkaas wax idin yaalo raggaani meel kasta ay ku fashilmeen meel kasta ay wax ka taagan yihiin qaati billah dadkii oo dhan ayaa diidan cid rabta ma lahan marka aan ku leeyahay hal hadana inaan inta ka yiraahdo
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaad isweydiinaysaa labada kun tobanintooda markii la dooranayay siday shacabkiisu u jeclaayeen maxay ilaa hadda u jeclaalayihiin qaarkood waa su-aasha isweydiinayso jawaabteeda waxay tahay mar haddaad bulsho wax xil u qabato ama aad kasoo dhex muuqato waxaad yeelanaysaa dadkii ku jeclaa qaarkood xitaa inaysa ku jeclan ayaa dhici karto laakiin dadka ay ku dambayso damiir soomaalinimo og halka dalkan loo wado halka dalkan la geey karo ninka geey karo oo yahay hal nin oo kaliya ayay taageeri karaan ee weliba garabkooda taageeyin daadis way farmaajo ilaa hadda uu haysto shacbiyada ugu badan ee shacabka Soomaaliyeed walina ay u garab taageeyeen okay marka Roble hadda wadadii saxda ahayd ayuu qaaday ay taageeyeen marka aad fiiriso Roble hadda wadadii saxdeed ayuu qaaday ayuu ku taageersan berina waxay ka soo horjeesan doonaan Roble qaabka doorashada u wada inay ka soo horjeestaan okay doorashada horaha ay u socota ay leeyahay markaani u fiirso doorashada horaha loo wado doorashada sana loo socda sana loo yeelo markay arkaan inuu yimaado Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble inuu xilka qaadis suubi markay arkaan ay wixii ku doodaan ee dib u laabtaan ilayhi doorashada ku socota waa sax qaabka wax loo wado waa sax qaabka calashan meel lagu tiriyo malahan marka interference laguma tiri karo marka interference laguma tiri karo kalsooni ma qabaan kalsooni doorasho ku gala ma qabaan dhamaantood waxa u moodaaba rag calashan gadaal ka riix ah oo aan lahayn kalsooni ay ku soo karaan dhamaantoodba kalsooni ay ku soo karaan ama ay wax ku yiraahdaan habeeraati ma jirto markay arkaan in doorashadan calashan laga boobane way ooynayaan way qeylinayaan wax ay ku qeylinayaan ma yaqaanaan su'aasha ugu weyn ee isweydiinta badan waxay tahay waa maxay farqiga u dhaxeeyo golaha shacabka aqalka sare iyo golaha aqalka hoose okay maxay tahay raggaan inay ka qeyliyaan golaha shacabka kaliya maxaa ku kalifay su'aasha isweydiinta badan waxay tahay golaha shacabka dhamaantooda waa 270 xildhibaan waay 270 xildhibaan haddii dhamaantooda 3 meelood meel laga qaatane haddaba waxaad meel u wadana ma lahan marka waxay ku qeylinayaan ragga iyaga damacsan yihiin ayuu xilliin doorashadan ku soo baxaan ragga iyaga damacsan ay leeyihiin doorashadan waa doorashadan hal loo ogolaado doorashada ka qayb galaan jawaari hal loo soo celiyo jawaari dadkiisa ayaa diidanay cid kale diidan ma lahan waxaan ku soo gabgabaynayaa waxay tahay barnaamijkayga dawladda Soomaaliya waxay ka soo horjeesatay UN-ka inay baarto ama baaris ay ku suubiso taadiyadii ka dhacay Ethiopia ani marka aan ka hadlo fikirkayga iyo qaabkan wax u arko iyo siyaasad ahaan marka ugu hadlo way ku saxan tahay Soomaaliya inay ka soo horjeesato in la baaro ama baaris lagu suubiyo Ethiopia sababtu waxay tahay Ethiopia waxa dagaal ee ku soo qaaday jabhad ayaa dagaal ku soo qaaday maadaama jabhadaasi ay dagaal ku soo qaaday dunida oo dhan ama dunida qaar ee danaha Ethiopia ka lahay waxay taageereen jabhadii ay taageereen si dawladda loo dumiyo jabhadaasi taageertay adduunka kale qaarkood way ka soo horjeesteen in jabhad dawladda ku duusho maadaama ay ka soo horjeesatay hadee waxa arintan wada waxay tahay waa dalal qaar ah oo qaas oo dana gaar kale ayaa arinkan wato waxay ka damacsan yihiin oo ah in Ethiopia markaan dagaal kale oo sokeey in la galiyo hadii Ethiopia burburtane Soomaaliya saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa way ku qasban tahay in la helo rag u soo baxo East Africa ama Africa markii laga hadlayo in loo helo rag taageero qadiyadooda rag maskax iyo cilmiyan u dhisan waa in loo helo Africa oo sare u qaadi karo danaha Africa adduunka kale ka gali karo reality marka ka hadlo dadka qaar way neceb yihiin hadalkaani laakiin runta ayaan ka hadlayaa Africa hadii horumar doonayso waa in Ethiopia ninka xilka u haya waa in uu dalkaasi joogo maamulkeedana hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii dalkan doorashadiisa uu ku soo guuleystane reality waxaan hubaa in labadaas isbiirsado in Africa wax badan ay ka bedeli doonaan dhamaan waxay ka codsanayaa inaad videogan la gareysaan si dad badan u gaaraan oo aad ku maasantiin daawashadiina halkan ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka aan ugu talagalnay xoogii ugu dambeeyay halkan kugu soo gudbiyo adigana xaq aan kugu leeyahay inaad la gareyso oo aad la wada saaxiibada kale aan ka helo aad iyo aad ay u maasantiin halkan ayaan ku soo gabagabeeyay barnaamijka aan ugu talagalay xoogii ugu dambeeyay halkan kugu soo gudbiyo